waa runtaa walaale aniga cabdiraxmaan baa la yidhahdaa barasho wanaagsan waa runtaa waa ayaan daro dagaalka somalilan iyo puntland u dhexeeya iyo sida uu cabdi ismaaciil samantar u dhigay ama u tusay ummadda soomaaliyeed meel walba ay ku nooshahay maanta dunida dacaladeeda. laakiin ayaan darada maanta ummadda soomaalida haysata ayaa waxaa kamid ah aqoon-yahan marin habaabiya oo siduu rabo wax ugu dhiga iyo wadaad ama mar diin ugu gabada oo diinta si khaldan ugu fasira inkastoo wadaada fiican jiraan ama siduu rabo asagoo ugu fasira ama mid ku dilahayaba maanta waaba joogaayo dhahaya jannada galaya haddii ku xalaaleysanayo dhiigaaga xalaaleysanaya oo diintiisa khariban u fasirtay iyo masuul qof laga dhigay oo meeshii ummadda uu wax u qaban lahaa ka doorbiday inuu musuq maasuq ku noolaado ummadana musuq maasuq wax allaale ku wado wax allaale iyo wixii soo geliyay deegaankaas ama dadkaas meeshii uu nafac ama wax ka siin lahaana ay noqoto mid asagoo u jeebka gashado. ayaan daradaas waa ayaan darada ummadda Soomaaliya haysata Soomaaliyeed meel walba ay joogta haysata. haddaan usoo leexdo cabdi ismaaciil samantar waa wax lagu qoslo waa wax aad iyo aad laakiin yani dee qofka bini aadamka wax walba waa laga filaa. cabdi ismaaciil samantar wuxuu la barbar dhigay ama ku mithaalay su-aashii VOA-da la weydiiyey damac siyaasadeed inuu ku jiro dhanka Muuse Biixi iyo Cabdiweli Gaas. duulaankii dhammaa oo Muuse Biixi soo qaaday oo tukarag ku qabsaday oo uu yiri xuduudii Ingiriiska ayaanu soo xiraynaa ayaa cabdi ismaaciil samantar wuxuu ka dhigay damac. wuxuu awoodi waayey inuu qeexo ama uu dhaho wuxuu ahaa weerar qaldan oo Muuse soo qaaday. wuxuu awoodi waayey inuu ummadda Soomaaliyeed u bayaaniyo inaysan jirin wax xuduuda oo dalka Soomaaliya ka jirta. wuxuu awoodi waayey inuu ummadda Soomaaliyeed u bayaaniyo ninka sheeganayo xuduuda dhahaya inuu yahay nin canshuurta asaga iyo kan sheeganaya oo Muuse ah inay labaduba yihiin niman canshuurtii ummadda Soomaaliyeed wax ku soo bartay oo gaar ahaan dhanka Muuse uu ahaa raggii difaacay oo baylood ahaan ama muxuu ahaa ciidanka cirka oo ahaa calanka iyo ciidda dadka Soomaaliya raggii difaacay oo ahaa. waa ayaan darro maanta waxay ahayd in ummadda saa u soo yiraahdo kii shalay difaacay oo lagu soo tababaray oo wax ka ahaa oo ka qayb qaadanayay difaaca dalkaas inuu maanta yiraahdo calankii uu harsanayay ma jiro. yani cid Soomaaliya oo ka dhageysanaysaana ma jirto hamigaas ama damacaas. dhanka kale Cabdiweli Gaas markuu ka hadlay waxay isla barbar dhigay musuq maasuq iyo wuxuu yiri inuu doonayo Cabdiweli Gaas inuu soo noqdo oo doorasho rabo inuu galo sidaas daraadeedna uu dagaalka u wado asagoo qarinaya duulaanka uu soo qaaday Muuse Biixi. yani si kasta uu u dabooli karo Muuse Biixi iyo danuubta uu galay iyo dagaalka uu soo qaaday si kasta waa sameeyay cabdi ismaaciil samantar ku dabooli karo. wuxuu yiri Cabdiweli Gaas wuxuu rabaa inuu doorasho ku soo noqdo. anaga Cabdiweli Gaas waxaan ognahay reer Puntland oo dhan ay ka dhaadhacsan asaguna uu sheegay inuusan doorasho dambe galaynin. يعني وحي ملاوالة patharical questions واسويدين كرنا سيكلا وافكيري كرنا لكن حقيقة وحا إن أفكيسة وحانو كما قالنا بانغفوك حكم كرنا. وحوير Cabdiweli Gaas أنو دور الشبدا بدون ميين أنقلو تاسا ميل تالا إساقو إسشرحي ماهينو مركب ماها إيدانا إن دادك اللمارين حبابيو وحان جيرين أما أنن أغينا إنو محوها cabdi ismaaciil samantar ماشا كانو. لكن cabdi ismaaciil samantar waxaa la yaab leh oo aad aan ula yaabay inuu isla barbar dhigay tukaraq waxa ka socda ama dagaalka halka ka socda dagaalkii gaalkacyo oo kale. marka iyaduna waa ayaan daro oo cidna kama filaynin maanta nin aqoon sheeganaya inuu gaalkacyo iyo tukaraq is agdhigo. gaalkacyo dadka waa dad ehel ah waa dad meel walba joogan Soomaalidu hays dagaalaan iyagoo dad isu xiga laakiin wali iskuma qabsan. Ingiriis baa siiyay iyo Talyaani baa siiyay dhow waxa sismaysan oran kumana aysan dagaalamin. laakiin Muuse asaga tukaraq yimid asaga ku soo duulay asaga yiri Ingiriis baa yani siiyay sidii inuu asaga kala ballamay oo kale
yirina waa sii soconaya xuduud xataa intaa waa ka dheer tahayo intaa in ka dheer baan gaaraya. cabdi ismaaciil samatar waxaan kaloo rajeynayay muddo laga joogo 4 bilood ayaan hal xabada dhicin oo xabado aan meeshaas dagaal wax duulaana uusan ka dhicin dadka Soomaaliyeed. 4 bilood Puntland waxa ay intaa raadinaysay maslaxa in lagu dhameeyo oo ninkan ay tusto beesha caalamka iyo ummadda Soomaaliyeed bal waxa uu yahay ayagoo og taariikhdiisa laakiin waa cabdi ismaaciil samatar ilaaway taariikhda Muuse Biixi ayaan darro inuu xasuusto waxyaabaha qaarkood laakiin uu ilaawo taariikhda Muuse Biixi. يعني cabdi ismaaciil samatar wuxuu ka hadlay garowe 14 sano isagoo tagay oo uu yiri cadow dad xiran oo maxaabiis oo ay laga qabsaday Somaliland buu wuxuu yiri waxaan ku arkay garowe dadkaas wuxuu yiri waxa loo arkay cadow oo anaguna aan cadow baanahay hal ay xiro laakiin wuxuu qiri waayay ama garan waayay kuwaas maxaabiis bay baahayeen 746 qof oo Muuse xasuuqay oo magaalada Boorame 48 saac ku xasuuqay muusan xusin marna ma uusan xusin oo hadalkiisii VOA kumuusan xusin taariikhda Muuse ma uusan ku xusin taariikhda Muuse dagaalka uu soo qaaday ee tukaraq ee gardarrada ah deegaan dad ay maamulaan oo dawlad ka taliso maamul goboleed uu ka taliyo inuu intuu soo furisto xoog ku qabsado dhan waana sii soconaya xoog xal aan ahayna ma hayo muusan soo qaadan 4 bilood nabadii laga shaqeynayay oo beesha caalamka sida UN representative ninka u jooga Soomaaliya Michael Keating oo 2 jeer tagay Somaliland oo ku soo guul daraystay muusan ka hadlin European Unionka oo intaa wax ka dhaadhicinayay oo ay ka diiday muusan soo qaadan cabdi ismaaciil samatar Buurmadow oo ka qudbeeyay Puntland oo yiri nabad baan raadinayaa dhiig Soomaaliyeed iyo dhiig Islaam xilli uu daatan lama joogo oo la yiri see hadalka u dhigi karta oo 5 sanadood xabsiga loo taxaabay oo intaa markii loo taxaabay 5 sano hadda 3 sano laga khafiifiyay. cabdi ismaaciil samatar intaas oo dhan Muuse xasuusan la yaabi mayna cabdi ismaaciil samatar laakiin wuxuu Puntland tusay inuu xasuusan karo dhacdooyinka Puntland ka dhaca sida tan garowe oo uu sheegay oo maxaabiista xilli uu cilmi baaris ku jiray iyo dagaal gaalkacay ka dhacay inuu xusuusteeda uu aad ugu fiican yahay deegaanadaas iyo madaxdooda uu ku sheegay musuq inay isu diyaarinayaan ay meesha dib ugu qabsadaan laakiin Somaliland wuxuu ka dhigay ama ninka la yiraahdo Muuse Biixi ceeb ka salin Booramo xilliga uu ku dilay 746 oo 48 saac ahayd oo dadku ka hadlay oo uu leeyahay ma dhicin xusuq Soomaaliya kama dhicin meel aan ka ahayn Boorame oo uu yiri wadaadkaasi waxa la dilay aniga walaalkay walaashay sidigay iyo eheladiisii oo dhan ma sameyn qof Soomaaliya maanta madax ka ah Soomaaliya qof madax ka ah oo saamay ma jiran ka ahayn Muuse Biixi taariikhda uu ka hayo mudo isaga deegaankiisii waa daboolay duulaanka uu soo qaaday waa daboolay cabdi ismaaciil samatar oo gardarrada cad ah sugitaankii 4 bilood oo inta loo dal qaadanayay iyo dadka caburinta uu ku hayo uu daboolay inaysan doonayn dadka sool jooga uu daboolay oo maalinta 18 May ay u dabaaldegaan maalinta qashinka uu daboolay wuxuu kaloo daboolay inay sameysteen maamul gooniye oo khaatumo la yiraahdo xataa si ugu xoroobaan waa uu daboolay muusan soo qaadan xataa intaas oo dhan waxay ahayd cabdi ismaaciil samatar waxa uu isku dayay inuu Muuse Biixi dhibaatooyinka uu geystay iyo duulaanka gardarrada uu soo qaaday iyo dambiga uu leeyahay isagu mid waxaynay ummadda Soomaaliyeed way aragtaa Muuse maalintii uu qabsaday ilaa hadda maruu xiro cid ka soo horjeeda ama ha noqdo journalist ama cidii hadasha ama nabadoono ama kuwa nabad raadinaya xal arrinkan uu raadinaya ama caburin uu ku hayo gobolka Sool oo kuwii hadda hadlay leeyahay xabsa loo taxaabo intaasoo dhan Soomaaliya oo dhan waa u jeedaa laakiin cabdi ismaaciil samatar waa ayaan daro inuu sheegto waxaan ahay shaqsi Soomaaliya waxaan ahay shaqsi muxuu ahaa aqoon-yahan laakiin waxaan daboolayaa deegaankan ka soo jeedo ninkii aniga xataa deegaankayga dadkayga xasuuqay oo wali diyaar u ah xilligan maanta aan ku jirno inuu ummad kale inta deegaankooda iyo maamuladooda ugu tago inuu xasuuqo inuu ku garab siiyo oo uu ku taageero
oo si hufan uga hadli waayo qofka cadaaladda ku taagan iyo qofka gardarrada ku taagan inuu kala muujin waayo waa ayaan darro Soomaali u soo hoyatay laakiin hal dardaaran baan jeclaa inaan uga tago Cabdi Ismaaciil Samatar oo Soomaaliduna ay u baahan tahay inay wada dhageysato asna aqli celin ugu fiican ugu filan Cabdi Ismaaciil Samatar walaal waxaan ku weydiin lahaa haddii adiga qof adiga asaaga ah uu gurigaaga kuugu yimaado xoolahaaga iyo hantidaada iyo waxaago dhan oo uu ka qaato xoog ka xoog badnayn laakiin uu ka qaato saddex qodob baa ku banaan in markaas aad iska celin lahayd oo qofka marka waxa dhiilada xoolahayga iyo hantidayda iyo waxay ku ogolaan maya bax ma waxaad sugi lahayd oo waqti baad siin lahayd si aad caalamka iyo ummadda u tustid islaamka iyo ummadda Soomaaliyeed oo tiraad ninkan waxayga halayga qaado oo mise waxaad sugi lahayd inta xukunkaasi ka soo dhamaanayo oo ayagu ay dhihi doonaan ninkan waanu calweynay ee iska celi bal adigu arrinkaadi dib ugu sugu noqotay saddexda arrimood si adiga hantidaada ummadda Soomaalidu bal u xalaalaysato bal saddexdaas kii adigu aad is leedahay kaasaas xanooshe marka kadibna bal waxa tiraahdaa Puntland keebay qaaday